Assalaamu calaykum dhammaan asxaabteedina meel walba aad ku joogtaan soo dhawaad kuna soo dhawaad channelkayga Life Ubaja waa anigoo ah Bahja insha Allah maanta waxaan sameyn doonaa doosh lagu magacaabo dooshadii karootada insha Allah waxaan u baahanaa adeegan meeshan iiga muuqda ujeedaan bikir binood waa kan hadda soo qabtay bikir binood u baahanahay karooto ayaan u baahanahay waxa kale u baahanahay cream fresh oo u baahanahay suuga u baahanahay sokor bur sokorta shiidan iyo qarfo ujeedaan qarfo iyo ukuntaas ayaan u baahanaa insha Allah ila socod sidaan u sameyn doono insha Allah ujeedaan karootada ayaan hadda ka bilaabay karootada ayaan sidaan u sameysanayaa saa ujeedaan burka ayaan qiyaasanayaa burka ayaan sii diyaarsan rabaa hadda koo laba saddex afar iyo bar bur ayaan u baahanaa insha Allah barkii ayaan kusoo darsanayaa marka koobkan afar iyo bar oo koobkan ayaan ku cabirtay litir waaye koobkan saa ujeedaan carfisida ayaan soo qaaday hadda koob laba carfis ayaan ku darsaday bikir binood waa kan bikir binood waa kan bikir binoodka ayaan ku darsanayaa koob laba markii dooshadan la sameynayo waa muhiim in bikir binood lagu daro kacisada kaligeed ma u dari karo kan u baahan yahay dooshadan markii la sameynayo qarfa ku daraya hadda ujeedaan labo qarfe halahan ayaan isku qasi doonaa insha Allah waan isku dhex qasayaa saa ujeedaan inay isdhex galaan ayaa rabaa kulligooda burka iyo qarfaha iyo wax dhan inay isdhex galaan ayaa rabaa
qaybta kale ayaan u gudbaynaa. Hadda burka waa ii diyaar, karootada waa ii diyaar. 3 ukun ayaan ku ridayaa sida ujeedaan. sokorta ayaan ku shubayaa 1 2 3 iyo haaf. 3 iyo haaf koob sokor ayaan u baahanahay. hadda sokortii iyo ukunta isku qasaysaa ujeedaan. ilaa cad ay iga noqonaysa ayaan sugayaa. insha Allah. hasa ujeedaan way soo cadaanaysaa ukuntii iyo sokortii. waa kana way cadaatay sokortii iyo ukuntii. hadda burkii ii diyaarsanaya ayaan ku dhex shubayaa saa ujeedaan. burkii ii diyaarsanaya haddaad soo diyaarsaday ayaan ku dhex shubayaa. haddana waa isku qasaa. hadda karootada ayaan ku shubayaa. 6 koob oo karoota ayaan u baahanahay. hadda subag ayaan ku darsanayaa 125 gram subag ayaan ku darayaa. hadda kadib waan isku qasayaa dhammaantooda. saxankaad waxaan soo marsaday subaga soo marsaday rootig shiidan oo soo shubay. hadaa rabtidna waxaa ku samaysan kartaa bur iyo saliid sida aad jeceshahay. marka waa kana saxankii ayaan ku shubayaa sida ujeedaan. foornada ayaan gelin doonaa. waxaan sugeynaa 20 ilaa 30 daqiiqo meel dhexdhexaad. dabkan dhexdhexaad inuu ahaado waaye iyo gubanaa haddii kale 125 aa u geysanaysaa dabka. tartiibkiisa u karaa marka hore hoose ayaa u geysanaysaa. marka maasha Allah dhoolshada arag ay soo baxi doontaa insha Allah. hadda
waxaan sii diyaarsan doonaa insha allah wixii aan kor ka marin lahayn doolshada. 100 gram oo subag waaye sida ujeedaan. kan halkan xabo ayaan ku darayaa cream fresh waaye. hal hab cream fresh ayaan u baahanahay. waxaa kaloo u baahanahay sokorta shiidan 4 koob oo deciliter ayaan u baahanahay. deciliterkan ayaan u baahanahay 4 koob ayaan u baahanahay. waxaa kaloo u baahanahay liinta qolofteeda ayaan u baahanahay. saa ujeedaan halkan liinta ayaan xoqayaa. waxyar oo qayaad haaf ayaa u baahan tahay bis. liinta dhan u baahan haaf oo qolofta ayaa u baahan tahay. hadda waa saa ujeedaan halkan waan isku qasayaa wixii dhan adeegii dhan ayaan isku qasayaa. kadib waxaan ku shuban doonaa weel yar oo sharaxi doona insha allah. waa arki doontiin weelkaa ku shubi doonan insha allah. waakana doolshadii way qabooban tahay. foornada kasoo bixiyey waxyar ayaan u kaadiyey ilaa kuleelka ka dagaayo. way qabowday hadda maasha allah. kadib sidaan ayaan u sameynaya. saa ujeedaan weelkaas ayaan kusoo shubtay kareemkii. sidaas ayaan ugu wareejinaya dhammaan doolshada korkeeda dhan. kuulal yaryar ayaa meesha dhex gelinaya. saa ujeedaan kuulal yar oo shukulaato waaye. haddaad rabtidna waad iska dhaafi kartaa. haddaad haysanin bahalkaas oo lagu shubaayan xataa waad iska dhaafi kartaa. korka ayaad ka barsan kartaa ma u baahnid. haddaad haysanin bahalkaas insha allah shukulaatadaas iyo yariiska haddaad haysanin waad iska dhaafi kartaa caadi waaye. marka kareemka iyo waxaa daran leh doolshada hoos inaad samayn kartid oo kareemkaas korka marsan kartid maasha allah. haddaad qurux iyo waxaa rabtidna maxaa lalahay suuqada lagu gadaa waa soo gadan kartaa. ما شاء الله
ujeedaan doolshadeen sidaan ayay kusoo baxda quruxda badan aad iyo aad ayay u qurux badan tahay kaaliska arag aad ay u macaan badan tahay aad ay qaraf badan tahay waqti badan ma qaadanayso waxa waaye doolsho aad u fudud waaye maasha Allah doolsho aad iyo aad u macaan badan waa ka heli doontaan insha Allah hada videoga ka hesha adigoo mahadsan subscribe like and share waa inuu videogan xiga khayr badan ayaan nidaafay insha Allah